hoggaansamo hoggaaminta ay bartaan ee ay wax ka qoraan waa hoggaamintii rasuulkeena salawaatu rabbi wasalaamu calayh aynu rasuulkeena eegno aynu cilmi baarno aynu wax ka qorno innaga yaalaynoo keenin hoggaamintii rasuulkeena oo afka lagu soo qoray innagu intaynu hoggaaminta rasuulka qorno innagu aynu ummadaha u geyno hoggaamintii rasuulkeena yeesuu rasuulkeenu wuxuu hoggaaminayay gabagabadii munaasabadaasi lagu xusay xabiibkeennii Muxamed sallallahu alayhi wa sallam ayaa waxaa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Sheekh Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle iyo madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici hadday in uun mithqaalu darratin maxabii qalbigaaga ku jirto siday ku dhibi meel nabi Muxamed lagu xusayo lagu amaanaya sideynad uga faa'iideysanayn oo ismoogaan la'aan adiga oo dhex jooga aanad soo arkaynin ilaan ammaantii rasuulka halka lagu hayaa maxaa kale meesha yaala Xasaan bin Thaabit minbarkiisu nabigu saaray markuu nabiga amaanay waa shacabka saqadii inuu sheegay waliba fadhi kumu amrina kacbu istaag nabi Muhammad ba Xasaan saaray oo yiri istaag ajawta Muhammadan faajabtu anhu أجود محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء محمد يا رسول الله صلى الله محمد يا رسول الله صلى الله عليك وسلم المولى محمد رسولكم مركم قصيرنا كل فتي حسان بن ثابت ده وحي اللهم أيده بالمسلمين إله القدس أيد مركب محيل إنه نقابلني دعاء الرسول إلى الحسان ومخصصين قف كستو أمان رسول إسلتها دعاء النبي هليا وروح القدس كان له أيديا ومعناها روح القدس كان له أيد له إهل الجنة كدقوي إلهي رسول كيسي أمان كيسي إسلتها ده إلهي القرآن كيسي كل شيء يقف النبي محمد آية إنه قال يهو عذابه وقواره يهو كسوهر جيد كذا من بايدي كون النبي هي سيا ولا عذابية ودكي عايه دي العذاب أنا ما أمانين معلاتنا لقيه لا هي مسموك